gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan oo ka hadlayay kalfadhigii maanta uu yeeshay golaha guurtida Soomaaliland ayaa ka hadlay shirka qaar ka mid ah beelaha Soomaaliland ka socda buurta gacan libaax waxaana uu sheegay shirkaasi inuu yahay mid aan laga filayn inay ka soo baxaan waxyaabo wax u dhimi kara qarannimada Soomaaliland. shirkii beeleedkii gacan libaax dawli uu socdaa wuu dhamaaday maan maqal uu socdaa reer dhan oo isu tagay waxun ka filimayno reerdano isu tagay waxun ka filimayne ilaahay wax ka dhigo wax qarankan anfacay inuu ka soo baxo. sidoo kale gudoomiyaha Salebaan Maxamuud Aadan waxa uu ka hadlay isbeddelka ka socda wadanka Itoobiya oo dhawaan ra'iisul wasaare cusub loo doortay iyo qaraxyo ka dhacay wadankaasi waxaana uu yiri dawladii ugu weyneed ee Itoobiya daraskayna lahayd waa tan isbeddelku isbeddel baa dhacay prime ministerkii waa la bedelay خلخل بيجلسي هي خلافات بابوي لطوريو وحي قريبة كانت إلى هيك قبل شيء يقرأ وين سامين يسا وحن هذا ينودي ريا متشرو لكن دعي نقولي دعو بين نقولي خير مع الدق بشتي فيه هرقيسا